السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa. halkaas ayay inoo joogtay ardaydii markii hore la socotay. haddii aad markii hore la socotay halka waxaan u banaynay ama qaybtaan u banaynay say madbaxa ama kitchenka waxa uu taqaano iyo qolka hawlku ay daaqada halka ugu helaan maadaama uu qof kale jigadiisu ka inaga halka bedroomka ama qolka hurdada suuligiisana daaqad yar uga helo. sidoo kale labadan qol waxay ka heli doonaan xagaas ayaan ka siin doonaa daaqadaha iyaga hadii Ilaahay idmo. qolkan ama suuligana waxaan ka siinaa halka baranduhu noqon doona insha Allah. halka markaan joogno marka maanta waxaan isticmaalnaa push or pull wax la yiraahdo inuu kor u qaadno. halkan marka waxay noo yaalaa top oo xagga sare ah front. marka front baynu ka istaagaynaa. marka front ka istaagno waa ka blankeeni oo muu kacsanayn dalayn buu ahaa. hadda waxaad ku jiidi doontaa orbit navigation waxa loo yaqaano kadib saasaadana blanki. marka hadda way noo muuqda waa soo dhaweynaa giraanta mouse-ka riixaya oo isku wada furayeen gidaaradaasi. markaad ku dhufato calaamadda push or pull loo yaqaano ayaad ku dhufanaysaa. waxaad dul istaagaysaa halka hadda dul istaagay imika halka dhibicda loo yeelo waa hoolka qaadmi doona marka ama kor u talaxmi doona. marka waxaan rabaa in gidaarka la qaado tajaajuurka ka dhammaan marka isaga talaxmi doona. marka ku dhufto ayaa kor u soconaya kadibna cabirka sheegaya oo 3 mitir. guriga haydkiisu waa intaas weey. orbit ma ku dhufanayna saan guriga wareejisano zoom extend ma tan ku dhufanayna si wajahada guriga inoo la kisiyo kadibna waa ka gurigeena. haddaynu top ka istaagnay imika xagga sare hadalkiisa inuu balankiisa ku dhameystiray kaasoo laba qola suuligii qolka hurdada daaradii ama waxa loo yaqaan corridorkii qolkii hoolka ahaa kitchenkii suuligii publickii barandihii. markaan xagga hore ka istaago waxaan doonayaa albaabadan inaan kor u qaato. marka albaabadan inaan kor u qaato imika albaabkan ayaa kor u qaadaya. saan kor ugu qaada push or pull baan dooranayaa. kadibna waxaan u tagayaa 5 senti shatterka ahayd ama looxa waxa loo yaqaan aan uga boodnay. kadibna waxaanu kor u qaadanaa 2 mitir iyo 1 senti ama 2 senti 2 mitir iyo 2 senti 2.1 enter. intaasoo macnaheedu yahay halkii albaabku ku joogsanayay. okay albaabkiina fardadii furmaysana kor u soo qaad 2 mitir iyo 10 senti enter. kana sidoo kale ku dhibaca ku yeesho kor u qaad isagana 2 mitir iyo 10 senti enter. kana kor u qaad isagana 2 mitir iyo 10 senti. okay inta markaan sameeyo marka waxa la baahay marka inta aan xiro waxaan sameyn karaa halka gidaarka kaaga muuqda oo gidaarkii halka ka iimaanay way kaasaynu markaa soo qaadanayna. tan dul istaagno ku dhibaca yeesho ayaa ku dhufanaa oo halka ma soo dhaafay marka koowaad waxa ku noqdo ku xid mar labaad ku dhufo kadibna soco ilaa ay halkaas ku xidhaysaa. markaad halka ku xidho waxa laga rabaa oo aad u sameyn doontaa shutterkii wixii loo yaqaanay looxa halkan ka maray inuu xagga sarana ka maro ku dhufo kadibna kor baad u socon. cabirka aad soconaysaa waa 0.05 enter. oo ka marka line kaas aad markaa u sameyn doontaa intaad kor u qaadato kan halka ku xidho ayaad soconaysaa ilaa iyo meelahaas. okay waxaad baabiin doontaa line kaasi line-kana waad ka baabiin doontaa ka gudahan waad ka baabiin doontaa ka gudahan waad ka baabiin doontaa kana waad ka baabiin doontaa. halka waxa kaaga muuqda hadda albaabkii oo dhameystiran